waxaan isleeyahay anigu 30 sano wixii dhacayay goobjoog baan u ahaa marnana iguma soo dhicin waxaan ka ahayn midnimo ummadda Soomaaliyeed nabad ummadda Soomaaliyeed iyo dawlo caadila sidii loo heli lahaa dhaqaaleeda xadaafka ee ummadda Soomaaliyeed ka baahan yihiin sidii loo soo saari lahaa fikirkaygu waligay yaalahay taa kama leexa waxaan idin sheegayaa maanta oo aan joogo waxayna soo martay muddada aan sheegayo waxayna soo maray 6 dawladood waxa weeye dawladdii dhexe markay meesha ka baxday markaan ka reebo aan ka tago Somaliland oo gaar isu taagtay koonfur waxay nagu soo maray 6 dawladood Ali Mahdi Maxamed Ilaahay u naxariisto waqtigiisii oo 91 ahayd dawladdii dhinacan ka dhalatay nasiib darro muddadaas waxaynu gallay dagaal ahli ah ayaa halkan ka dhacay hase yeeshee waxay ahayd yacni shirkii ka dhacay Addis Ababa 93 oo aan aaminsanahay inuu ahaa shirka ay Soomaali ku heshiisay laakiin yaa burburiyey waxaan isleeyahay waxa burburiyey United Nations Kabunga nin la oran jiray oo Ghanaian iyo ninkii ciidamadii Mareykanka ee kolkaa la keenay UNITAF la oran jiray badankoodu way noqdeen markaas madaxda ka ahaa ciidamadii qaramada midoobay ee halka joogay ayaa baabiyay haddaan halkaa in yar idiin caddeeyo sababta aanu leeyahay wuxuu ahaa shir lagu heshiiyey waxaa jiray 15 urur beeleed 15 urur beeleed oo dhammaantood ka soo qayb galay shirkaas oo 15kii kolka maxay noqdeen waxay noqdeen 30 bay u qaybsameen 30 iyaga u qaybsan bay tageen oo hadee waxa weeye bahalka qabiil la yiraahdaa waxba isagu isuma ogola yani qabiil hebel wuxuu soo gol yahay ma jirto kolka laba bay u kala jabeen halkii qabiil midba waa Ali iyo Caydiid oo kalka isayay ayay u kala safteen teen iyagoo sidaas shirkii la tagay Ali Mahdi Ilaahay u naxariistay hal baan ku amaanaya shirka markii la tagay ee la furay miis ku dhigay madaxweynenimadii Caydiid kolka isagu madaxweyneba ma sheeganay inta waa qodobka aan isleeyahay wuxuu ahaa 30kii 15 bay isugu urureen waa 30kii 15 bay isugu urureen waa factor kale oo muhiim u ahaa heshiisiintii Soomaaliya okay intaas kolkay dhacday waxaan isleeyahay waad ogtihiin Xasan Sheekh oo kolka isagu ahaa dawladdii marka arinta dastuurkaaba ku shaqeysay muddadiisa kolkay dhamaatay si sharaf leh oo dimuqraadi ah ayuu u wareejiyay ma ku dhagin inta waxaan uga dan leeyahay anigu aqalka saraan gudoomiye ka ahaa hadda waaba noo dhamaatay laakiin 4 sano ee uu jiray aqalka sare iyo baarlamaankuba uu jiray marna farmaajo dhinac dastuur umu leexan aniguna waa ku diiday kama ogolaanin
sharci darrada dastuuriga ah maya baan odhan jiray waan diidayay waxaan filayaa intiinani haddee waa kolley inaad joogteen ood maqlaysaan waxaan u soo degayaa intaa kolkaan anigu sidaas usoo koobkoobo waxaan u soo degayaa hadda doorasho waxay ahayd doorashadani inay waxay ahayd muxuu ahaa aqalkii sare baarlamaankii guud ahaan December 2000 bay u dhammaatay madaxweynahana waxay u dhammaatay waa 7 February ee 91 maxaynu hadda ka joognaa imise bilood wey waxa weeye waxay arrintaasi daliil cad u tahay madaxweynihii hore farmaajo madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ma uu rabo inuu xil wareejiyo si dimuqraadiya u wareejiyo waa kii golaha shacabka ka ansixistay 2 sano oo ku darsiya si khayra sharci ah waxaa hadda kolkaa aynu joognaa wakti la leeyahay inay doorasho dhacdo shirkii 27 May soo ma ahayn waxaa ka soo baxay golihii madasha oo ah 5 madaxweyne dowlad goboleed iyo prime ministerka waxaa ka soo baxay qodobo la xiriira meel kale aadi maaye Somaliland la xiriira saddex inay ahayn baan filaya mid waxa weeye Somaliland waxa hawlaheeda yani gacan weyn ku leh prime ministerka qodob kale waxa la yidhi 6 xubnood cabdi xaashi baa magacaabaya 3 xubnoodna طبعا prime ministerka xukuumadda magacaabaysa waa 11 xubnood uu yahay guddiga doorashadu intaanan odhan waxaan leeyahay annaga halka joogna ee muddadaa dheer u joognay midnimo Soomaaliyeed diidmo goosasho waxaa la qabtay shirar lagu qabtay dhuusamareeb 14 July 2020 22 July 2020 17 August 2020 4 February 2021 shirkii baydhabo 17 February 2021 iyo shirkii muqdisho 17 September 2020 intaas oo shir ah Somaliland meelna midna kama cid matasha kama qayb galin ma garan anigu sababta ay ku dhacayso leesh 5 dawlad goboleed waa ka qayb galeen hadda Somaliland xubnaha halka jooga ee midnimada u jooga sabab loogu diiday ma garan anigu laakiin farmaajo u diiday shakiba kuma jiro ya waxa weeye waa 6 shir oo lagaga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo midaynta iyo xalinta khilaafaadka dadka Soomaaliyeed oo kolka macnaheedu ma waxa weeye kolka Somaliland iyadu kuma bajirto meeshan oo shaqo kuma leh
anigu aad iyo aad baan arrintaa uga yaabanahay kow sidaaba ha ahaatee the prime ministerka waxaa la yidhi arrinta somaliland inuu yani ka noqdo yani dhexdhexaadiye xal raadiye dhex ah inuu noqdo ayaa lagu talagalay wuu noo yeedhay kolkuu noo yeedhay wuxuu yidhi waa aniga iyo prime minister ku-xigeenkiisa wuxuu nagu yidhi igu soo wareejiya arrinta somaliland prime minister ku-xigeenkiisii wuxuu yidhi waan kugu wareejiyey anigu de uma arko somaliland inay tahay badeecad la iibiyo ama lagu wareejiyo qof ma u arko ma u arko waxaan u arkaa masiir dad iyo dal waxaan idhi kuguma wareejinayo waxaan idhi keligayna ma ahe haddee waxaa dad baa talada ila leh oo talaan la noqonaya waayahay maalintaas kolkaan idhi talaan la noqonaya waad aragteen idaacadaha yani sawir baa lagaa qaadi waxaanad odhan baa la sheegi aniga 2 jeer boo igu dhacday waa idiin sheegayaa mar waxay ahayd arrin aad u adag oo labada aqal isku hayeen bay ahayd labada aqal ee baarlamaanku anoo xafiiskayga fadhiya 4 saac oo barqa iyo madaxweynuhu ii yeedhay waa u tegey isagiiyo mursal oo wada fadhiyaan u tegey madaxweynihii kolkaanu isa salaanay een fadhiistay wuxuu yidhi in yari suga waa arrintani waa taariikh wax gelaya weeye in yari suga waan soo kaajayahay dabcan waa yahay baanu nidhi waanu fadhinay arrintaasi meesha kuma jirin kolkuu nagu soo noqday wuxuu yidhi safiirka turkiga ayaan ballan kula leeyahay villa uganda marka waanu lugaynaynaa oo halkaasaynu tegaynaa halkaasaynu warkeenna ku kala qaadanaynaa albaabkii aan ka soo baxnay waa 6 mise 5 cameraman oo meesha jooga bacbacba waanu lugaynay saddexdayadii oo wada socotuu dhexda ku jira madaxweynuhu ilaa villa uganda aan ku tagnay markaan tagnay fadhiisanay haddana kolkaan fadhiisanay sawir nagu qaadeen baan madaxweyne dadkan wariyaashan kaamerooyinka waaweyn wata eenan aqoonin maxay yihiin waa wariyaashii madaxtooyadu yidhi intaa markii ay dhacday waxa la yaala wax heshiisa iyo waxaanu gaarnay midna ma jirin waa ku kala tagnay waxaan arkayaa fiidkii telefishinka saddexdayadii oo lugaynayna oo soconna oo la sheegayo inaanu heshiinay saddexdayadu maalintan dhaweyd een sidaa u tagnay waa qisadii labaad haddee waxaan anigu ma codsan in fact ma codsan maalin halaysiiya ma aan odhan laakiin waxaan idhi tashi baan u noqonaya maalintii dambe kolkaa maxaan arkay warkii oo layleeyahay war ka soo baxay telefishinka oo la leeyahay cabdi xaashi hal maalin buu codsaday maalintaa dambe kolkaan ku noqday ayaa kaameeradiina lagu boobay waxaan idhi tani waxa weeye kaameeradani
beenta waa waxa dalkan lagu kharibay ha waxa la qaadan karana maaha waa idiin sheegayaa oo daacad baan ka ahay anigu dalkan nabadiisa midnimadiisa iyo horumarkiisa waxaan ka ahay 1 2 3 4 naftayda yaanu hibeynaya halse ma ogoli halse dadweynaha Soomaaliyeed baan u sheegaya hal ma ogoli xaqiraad iyo boob wax lagu sameeyay ma ogoli waan diidaya marka maalinta boqolkan taladii oo qoran ayaan u keenay taladii oo qoran baan u keenay waxaan idhi yani taladii aanu qabnay oo qoraala ayaan idiin wada nin baa wuxuu yidhi kolka kaftan tuuro yidhi gudoomiyuhu maanta isagoo faraxsan buu inaga tegayaa idinkama sugayaan idhi anigu intiinan kama sugayo waxaan se idiin keenay taladayadii waa idiin akhriyaynaa waanan idinka tegaynaa idinkay jirtaad waxaad yeelaysaan kaasi waa arrin aan marnaba qaadasho lahayn ta labaad halkii maxaa laga soo saaray heshiiskii muxuu ahaa inaan 6 xubnood magacaabo waxaa jiray ogtiin dhammaantiin in guddiyo hore oo aan la isku raacsanayn la sameeyey guddigii Somaliland loo sameeyey uu ku jiray marka halkii waxa ka soo baxay oo kaliya waa maxay Cabdi Xaashi 6 xubnood ayuu magacaabaya haddee waxaan u qaatay anigu 6 aan magacaabay mooye 6 kale ee kuwa parallelka la ama counterka waxa yani u dhigma waxa magacaabi doona oo dib baa loo magacaabaya waxba lama magacaabine guddi la saaray oo la yiri xal raadiya oo guddiyadii hore ee jiray wixii shaqaale ah iyo wixii ciidana laga saaro guddiga hore ee u sameysteen qoladaas yani lama taaban isagoo sidiisuu jooga 6dii aan magacaabay baa 6 ayna rabin ku saareen guddiga intiisii kale sidiisa loo qaatay maxaa kolka arintu maxay ahayd 11 xubnood ee doorashada 4 aan anigu magacaabay iyo 4 ciday doontaa ha magacaawde dhinaca ka yimaada soo 8 ma aha iyo 3 uu prime minister ku magacaaba inay noqdaan guddiga doorashada lama sameyn sidaa waxa weeye 4tii aan magacaabay anigu iyo 7 duubkii ah prime minister ku cid uu magacaabay ma jirto laakiin waa 7 kale oo guddigii ku jirtay ayaa la yiri waa guddigii doorashada waad maqasheen guddigii labadii guddi 4tii xubnood iyo 7daas oo meel wada degan inay qoladaas intay baxeen kaligood ay hotel tageen oo la geeyay oo kolka doorteen guddoon ay doorteen 4tii xubnood ee magacaabay marka ilaa cidla lagaga tagay iyaguna guddoon bay doorteen labada guddoon ayaa meeshii ka soo baxay kadib waa la isugu yimid hal shay oo sidii kii hore oo kale ah ayaa tahay arrin aan sina loo qaadan karin prime ministerku wuu ii yeeray waxaan la joogay markaa Cabdi Qaybdiid wuxuu yiri waxaan rabaa inaynu wax isla xalino waa yahay baan waxaan ku yiri 3daada mid iyaga mid annagana midna adigu hayso oo sidaa doonta ka yeel ma uu ogolaanay wuxuu yiri
maya saddexdaydu ma ku jirayso meelna sideedda ayuunba wax dooran doona waanan isaga imanaynaa okay baan idhi waa ka tegey habeen dambe habeen kale wuxuu ii soo diray aniga hadda ila soo wacayo ogaada wuxuu ii soo diray ninka la yidhaaho dhegdheer waa taqaaniin dhegdheer baa ii yimid wuxuu yihi prime ministerkii baa ku raba waynu u tegaynaa waxba kama qabaan idhi hadduuna hadda ila soo hadlaynin waxaan ka qabaa ma jirtaan idhi hadduu iisoo kaa diri waay waanu tagnay waxa i raacay nin halka fadhiya cabdifataax ayaan horey u kaxaystay afartayadii baa isu nimid waa idiin sheegayaa erey baan idhi waxaan idhi caawa maxaa biyo kama dhibcaana aynu ku kala tegaynaa aynu isku ogaanaynaa wuxuu yidhi sideeddii baa isdooranaysa horta wuxuu yidhi saddexdayda iyo sideeddu isku liis noqon maayaan markaan soo saarayo saddexdayda gaar baan u soo saari sideeddana gaar baan u qorayaa marka sideeddaa isdooranaysa hadday heshiin waayaan co-chairing baa loo samaynaya oo yeelanaya cabdifataax qor buu yidhi arrintaas anigu caawa kolkaan idinka idinla hadlaayo shicibka soomaaliyeed warkaa u gudbinayo waa dood baan qabaa ergaan ahay waxaan u dacwo ahay shicibka soomaaliyeed cid kaloon u dacwoonayaa ma jirto leesh maxkamadaan u dacwoodaa ma jirto shicibka soomaaliyeed baan u dacwoonaya kolka sidaasaan kaga nimid habeenka waxaan idin raacinayaa odayaasha dhaqanka ee ku jiray 130 xubnood ee doorashooyinka dalkan samaynayay ayaa yidhi prime ministerka inaan aragnaan rabaa habeenkaa fursaddaa kolkii arrintii aanu ka heshiinay waxaan idhi odayaasha ayaa yidhi prime ministerka inaan la kulanaan rabo waan la kulmayaa buu yidhi waa isniin maalintu arbacadaan qada u qaadayaa buu yidhi dhegdheer qadadaa igala soo qayb gal waxaan filaya waxa weeye waxay ahayd 19 juun yes 19 juun ilaa maanta arrintaas halkii bay taagan tahay waxaan ka xumahay ereyga kale ee lama filaanka igu noqotay ee prime ministerka afkiisa ka soo baxay waxa weeye kolkii arrintaa aan u geeyey inuu arrintii intuu falanqeeyo uu ka keena jawaab ahayd wuxuu u yeertay 4 xubnood ee ahaa doorashooyinkeen anigu magacaabay wuxuu ku yidhi anigaa ka mas-uula doorashada cid kale oo wax kulihi ma jirto idinku waxa weeye doorasho yacni inay isdoortaan guddigii oo isku dhan 11kii inaad doorashadaa tagtaan haddaad tegi weydaan ood dooran weydaan waa idinka saaraya oo hadda isaguma magacaabinoo ogaada anaa 4 soo magacaabay ya isaguna liiskii oo midaysan yuu qoray waxa weeye waa arrin aan sina loo qaadan karin hadda mas-uul baan ahay oo anay ii xil saarteen qolada dhinaca ah ila waanu qaybsanay waanu ishaynaa khilaaf baa naga jira in nala dhexdhexaadiyo oo nala heshiisiiyaa waa meesheeda oo prime ministerku uuna heshiisiiyo ee uuna dhinac raacin waa meesheeda laakiin de hadduu dhinac raaco oo sidaan ugu garowsan karaa prime minister cadaalad samaynaya ma u arki karo shicibka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxaan rabnaa
waxaan rabnaa cadaalad baan rabnaa xildoon ma ihi xooladoon ma ihi waxaan ahay xal doone xal baan raadinayaa midnimo soomaaliyeed baan rabaa cidnana kama garowsanayo in la yidhaahdo xalka Soomaaliya iyo siyaasadda Soomaaliya shaqo kuma lihid cidaan ka siisanayaa ma jirto